nolol maalmeedka ayaa caadi u shaqaynaya wadadan waa midda wadnaha ee magaalada Muqdisho xilligii uu joogay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa la dhisay marka laga tago nolosha caadiyan inay u soconayso wadada waxaa lagu soo shubaa qashin xoogan oo sida dadka deegaanka ay noo sheegeen yimaada habeenkii iyadoo aysan jirin cid ku mashquulsan nadaafadda halkan oo ah wadada wadnaha ee magaalada Muqdisho maamulka degmada Hodan isagana waan la xiriirnay kama uusan jawaabin waxa uu ka og yahay nadaafad xumida ka taagan qaybo badan oo kamid ah magaalada Muqdisho gaar ahaan degmadiisa sidoo kale waxaan la xiriirnay waaxda qaabilsan nadaafadda ee gobolka Banaadir si aan wax uga weydiino wasaqeynta lagu hayo laamiyada Muqdisho ee dib u dayactirka helay iyaguna sidoo kale waa ay ka gaabsadeen inay ka jawaabaan nooma aysan sheegin sabab kasta qaar kamid ah dadka deegaanka ayaan la hadlaynaa bal waxa ay ka og yihiin cidda ku soo shubta qashinkan wadada marka hore magacayga waa Cabdiqari Cabdullaahi Maxamed ahna ganacsade kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed marna ah arday Soomaaliyeed dhigta qaar kamid ah jaamacadaha Muqdisho marka hadii aan ka hadlo dhibaatada wadadan lagu haysata hadii aan nahay ganacsatada Soomaaliyeed waxa kamid ah in wadadii qashin iyo bacaad iyo waxyaabo lafo inta badan marka waxa dhacdo in xiliyada habeenkii ama duhurada camal oo jidka jaam u yahay laga yaabo in baabuurta ama gaardameerada bajaajada inta jiwaan qashin soo saaro dabeeta jidka la soo dhigo horta in la dhigo qashinkii ama uu qurmo ama uu kala daato jiwaankii oo ka jeexmo waxa kamid ah dhibaatooyinka aan ku qabno yani waxanka jidka dhexdiisa waxa kamid ah yani hadii aan sii galo qaar kamid ah waxa jiro caqabado oo kamid ah sidii socodka gaadiidka oo jaamar marka qaar noqda sidaa darteedna jidkii lagu dhex qarinayo qashin bacaadna waa noo dheeryahay oo jidkii waxaa kamid ah qayb kamid ah bacaada yaala marka gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Hodan waxaan ka codsanaynaa in yani loo sameeyo shaqaale joogta oo xaqa jidka mar badan inta badan xaqa isbuucii hal mar laba mar hadii la heli karo dadka qashinka dhigayana in lagu la xisaabtamo yani loo sheego in aysan dhigi karin qofkii lagu arkana yani laga soo saaro go'aan waxa magac ahaan jira taliska ciidanka ilaalada wadooyinka ee magaalada Muqdisho haddii si dhaba shaqadiisa uu qabsado talisku waxa qayb ka ah inuu ka shaqeeyo nadaafadda gobolka lagu nool yahay ama magaalada halkan waa caasimadda Soomaaliya sida arkaysaan laamiyadeeda qashin xoogan ayaa ka jira iyadoo dawladda shisheeye ay dib u dayactireen wadooyinkan haddana sida la sheegayo dad Soomaaliyeed ayaa wasaqeeya haddii ciidamada ilaalada deegaanku ay shaqadooda si toos ah u qabsadaanna waxa suuragelaysa in laga gudbo caqabad kasta oo lagu wasaqeynayo jidadka la adeegsado ee dadweynaha u dhaxeeya Cali Aadan Muumin Goobjoog Muqdisho